ma rabtaa inaad ogaato waxyaabaha kaa hortaagan in jacaylkaagu guulaysto? haddii ay jawaabtaadu tahay haa, si fiican u dhegayso, u daawo muuqaalkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراء شرفت بدن وولالكين محمد مارة. هلك هذا جلس عطانا وفيسبوك بيج كي مارة، يوتيوب كي مارة. صاحب بيال ما أنتم حندي ودنا سيدي أظهرنا وجبرتين مقال كسابسن سيدي أدقو جوليسن لهي قلبي وقفه وشعل لسيد شعالك لسيد قويسك شريتان كلامانها يموضوعي عن كهذه الشريمة كم إذا ما أنت موضوع حندي ودنا وعلى إرادة عوان كيسة مرة بتاع شعال جوليستا طبعا ها لما أنت وين مضربنا قضباء ندي سو قد بندون إن شاء الله تعالى هدي كل قنطو حرجيني إن شاء الله تعالى إني لا يقوليو إنه كقول استشعال كاجو أنت أنا مقالك لكن أوجد بينه حسي شرف لك أقعد سنة إن أنا مقالك الله يكسرته لأنه وذاك تصاحب هذا يحي فكرنا أدنى غرة بتقيب تكومنتيجا كسر هذا المقالك مرة بتاع شعال قوليشتا مرة بتاع أنا تقول استشعال كاجا مرة بتاع إناد مستقبلكaaga ku guulaysato marra btaa inaad ogaato waxyaabaha ka hortaagan in jacaylkaagu guulaysto haddii ay jawaabtaadu tahay haa si fiican u dhageyso u daawo muuqaalkan haddii Allah awood loo raali ka noqdo dhamaanteen waxaan rabnaa in jacaylkeenu guulaysto dhamaanteen waxaan rabnaa inaynu ku guulaysano qalbigeenu qofkaaynu jecel lahaa laakiin ma garanayno waxyaabihii aan sameyn lahayn sidii aan u hanan lahayn qofkaas saadaradeed qodobo adiga lagaaga baahan yahay baan rabaa inaan halkan kuugu soo gudbiyo ugu horeyn u fur laabtaada jacayl kalsooni iyo karaamo ku dheehan tahay la qabso oo u samir nolosha inteeda dhibka badan si aad u gaadho nolosha inteeda raxmadda ay ku lamaan tahay iyo wanaag iyo jacaylku dareen oo damqo qofka aad doonaysid inaad nolosha la wadaagtid la dareen oo la damqo dhibaato kasta oo qofkaas ku sugan yahay ufur ilkahaaga oo dhoola caday adigoo qalbiga aad ugu qoslaya lamaanahaaga inaad si fiican ugu dhoola cadeyso una furto qalbigaaga ka farxi oo dareensi inuu yahay qofka noloshaada ugu qaalisan isla markaana aad doonaysid inaad agtiisa ku noolaato inta noloshaada ka dhiman haddii Allah awood leh uu sukin calfo noloshu ay farxad leedahay marka carabkaaga iyo qalbigaagu aad ku dareentid kuna dhadhamisid macnaha dhabta ee jacaylka kalsooniduna ay ka timaado qalbigaaga oo aad ku kalsoonaatid qofka aad jeceshahay haraadin qof wanaagsan oo aad nolosha la qaybsato ee adigu noqo qof wanaagsan oo nolosha la qaybsado haraadin qof dabeecad leh jacaylkana kula fahma ee adigu hal lagu raadiyo qalbigaagana u fur qof kasta oo ku jecel u hur waqtigaaga qofka aad jeceshahay oo baro waxa uu neceb yahay iyo waxa uu jecel yahay si hadhow aad caqabad kuugu noqon marka aad wada jirkiinu u dhawoobo oo aad hal meel ku wada noolaataan yeelo hami sare oo mustaqbalkaaga u qorsheey nolol aad u sareysa farxad furfurnaan deganaansho iyo diini ka muuqato haddii aad doonayso dhadhanka jacaylka inaad aragtid carabkaaga bar kelmadda kalgacaylka badan quruxda badan wanaagga badan ee iga raali ahow haddii khalad dhaco iga raali ahow waa kelmadda uu jacaylku ku dhisan yahay waa kelmadda ay noloshiina oo dhan ay ku dhisnaan karto haddii aad barato sida loo raali geliyo qofka aad jeceshahay marka uu khalad yimaado khaladka adigu ama sababtid ama qofka kale ha sababo si kasta oo khaladkaas u yimaado haddii adigu raali gelinta aad badsato oo raali gelintaadu ay badato runtii waxaad noqonaysaa qof ku guuleystay jacaylkiisa muuqaalkeena maanta intaas baan ku soo koobi doonaa وما سنتي صاحبة شرفت بدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.